واتسلامنتين أصحابتك kusoo dhawaada barnaamijkeena one by one oo kusoo qaadano wararka iyo warbixinada ugu dambeeyay waxaan eegi doonaa wararka ugu dambeeyay kubadda cagta sidoo kale tartanka loogu jiro ciyaartoyga Bellingham kooxda Arsenal oo doonaysa in la soo wareegto xidiga kooxda AC Milan iyo sidoo kale kulamada la ciyaari doona caawa horyaalka Ingiriiska iyo Premier League sida ay sheegeen qaar ka mid ah warbaahinta wadanka Spain ciyaartoyga Bellingham oo tartan loogu jiro maalmihii ugu dambeeyay ayaa waxaa la sheegay in kooxda Real Madrid tahay kooxda hogaaminaysa tartanka loogu jiro ciyaartoyga Bellingham haddaba ciyaartoyga Bellingham ayaa waxaa la filayaa in toddobaadyada soo socda la go'aamin doono mustaqbalkiisa iyadoo ciyaartoygan uu furmi doono bishii January labadeeda suuqii kala iibsigo haddaba kooxda Real Madrid ayaa waxay doonaysaa inay si dhaqso ah ula soo wareegto ciyaartoyga Bellingham maadaama ay ku adkaan doonto kooxda Real Madrid inay si fudud kula soo wareegto oo iyaguna jiraan kooxo doonaya ciyaartoygan inay la wareegaan kooxda Real Madrid ayaa og ciyaartoyga Bellingham inuu kooxda ka tagi karayo bisha June markay gaadho ama marka uu dhamaado xilli ciyaareedkan arrinkaas oo kooxda Real Madrid ay doonayso ciyaartoyga Bellingham inuu sugo ama uu samro inta ka hadhay xilli ciyaareedkan sidoo kale waxaa la sheegay in kooxda Real Madrid ay wada hadal la waday ciyaartoyga Bellingham sanadkii la soo dhaafay kaas oo ay u sheegtay ciyaartoygan inuu sugo uu sii joogo kooxda Dortmund sidoo kalena aanu u saxiixin kooxda Dortmund haddii ay soo bandhigto wax heshiis kordhin ah haddaba ciyaartoyga Bellingham ayuu go'aan ku laabanaya ciyaartoygan haddii uu ku biirayo kooxda Real Madrid iyo sidoo kale haddii uu ku laabanayo wadanka Ingiriiska oo uu ku biirayo mid ka mid ah kooxaha ka ciyaara horyaalka Ingiriiska ee Premier League gaar ahaan kooxda Liverpool iyo sidoo kale kooxda Manchester City oo ka mid ah kooxaha ugu dhow ee ciyaartoygan la wareegaya ama maalmihii ugu dambeeyay isha ku hayay haddaba ilaa hadda ma furin ama si rasmi ah suuqa ma furmin oo suuqa waxa uu furmayaa labada bisha January ee sanadda 2023 balse kooxo badan ayaa sii bilaabay inay wada hadallo la sii furaan ama heshiis rasmi ah la sii gaadhaan ciyaartoy kale sidoo kooxda Liverpool oo la soo wareegtay ama heshiis rasmi ah la sii gaadhay ciyaartoyga sidoo kale weeraryahanka kooxda PSV iyo sidoo kale xulka qaranka Netherlands ee Gakpo kaasoo isku dayeysay kooxda Liverpool inay kaga hortagto dhaawacyada iyo sidoo kale ciyaartoyda ka maqan kooxda Liverpool weerarkeeda haddaba kooxda Liverpool ayaa doonaysa sidoo kale inay ciyaartoygan kadib marka ay kooxdu la soo wareegtay weeraryahan kaasoo ah Gakpo inay hadda u dhaqaaqdo khadka dhexe oo ay la soo wareegto ama isku daydo kooxdu inay la soo seexato ciyaartoyga khadka dhexe ugu ciyaara kooxda Dortmund ee Bellingham haddaba ciyaartoygan ayaa hadda la sheegay ama wararka ugu dambeeyay sida ay sheegayeen ciyaartoygan hadda waxa uu doonaya ama uu doortay inuu ku biiro kooxda Real Madrid arrinkaas oo keenaya kooxda Liverpool inay go'aankada bedesho maadaama kooxda Liverpool ay markii hore doonayeen inay la soo wareegaan ciyaartoyga Bellingham hadda kooxda Liverpool waxay bedeli doonaan go'aankooda oo waxay u dhaqaaqi doonaan ciyaartoy kale waxaana ka mid ah ciyaartoyda hadda ugu fiican ee sidoo kale la iibsan karayo ama suuqa jooga ciyaartoyga Enzo Fernandez ee u ciyaara kooxda Benfica iyo sidoo kale xulka qaranka Argentina dhinaca kale waxaa hadlay ciyaartoyga hadafka u ahaa kooxaha ugu waaweyn qaaradda Yurub gaar ahaan kooxaha Manchester United Liverpool iyo sidoo kale kooxo kale kaasoo ah ciyaartoyga khadka dhexe uga ciyaara kooxda Benfica Enzo Fernandez oo ka hadlay kooxda uu ku biiraya iyo sidoo kale wararka laga sheegay ciyaartoygan Enzo Fernandez ayaa ka hadlay doonitaanka ay doonayaan kooxaha ugu waaweyn horyaalka Ingiriiska ee Premier League iyo sidoo kale qiimaha lagu wareegi karayo ciyaartoyga Enzo Fernandez oo ciyaara xulka qaranka Argentina sidoo kalena kula guuleystay xulka qaranka Argentina koobka adduunka ee sanadda 2022 ka dhacay wadanka Qatar iyo ciyaartoygan kadib markii uu soo bandhigay koob adduun aad u fiican waxa aad ciyaartoygan u diiday ama uu soo jiitay indhaha kooxaha caalamka sida kooxaha Manchester United Liverpool iyo sidoo kale haddaba kooxaha Manchester United iyo Liverpool oo markii hore ahaa kooxaha aadka u doonaya ciyaartoygan ayaa hadda waxaa la sheegay inay hadda ku soo biirtay kooxda Newcastle United ay doonayso ciyaartoygan inay ku soo darto kooxda oo kana mid noqdo ciyaartoyda hogaamin doonta mashruuca kooxda Newcastle United sanadada soo socda haddaba ciyaartoyga Enzo Fernandez oo aan mar hore ka hadlin bixitaanka ama joogitaanka uu joogaya kooxda Benfica ayaa ciyaartoygu sida uu sheegay inuu hadda awoodda saarayo kooxda uu hadda la joogaya Benfica sidoo kale ciyaartoygan ayaa sheegay inaan waxba ka ogeyn wararka laga sheegaya inuu ku biiri karayo ama iibsan karayaan kooxaha horyaalka Ingiriiska ee Premier League sidoo kale ciyaartoygu waxa uu sheegay inuu hadda saarayo awoodda kooxda Benfica arrinka inuu kooxda ka tago iyo inay iibsadaan koox arrinkaasina uu yahay mid uu mas'uul ka yahay wakiilka ciyaartoygu haddaba ciyaartoygan ayaa la filayaa inuu maalinka Jimcaha ku laaban doono magaalada Prague si uu ugu laabto tababarka kooxda Benfica sidoo kale waxaa jiray sida uu sheegay madaxweynaha kooxda Benfica in ciyaartoyga Enzo Fernandez kooxdii doonaysa ciyaartoyga inay la wareegto ama ciyaartoygan haddii uu rabo inuu ka tago kooxda Benfica in laga rabo inay bixiyaan qiimaha heshiis tabinta ciyaartoyga haddaba qiimaha heshiis tabinta ciyaartoyga Enzo Fernandez ayaa waxa ay tahay ama lagu qiyaasay inay gaadhiso 105 milyan oo euro arrinkaas oo adkeyn doona inaan ciyaartoygan
si fudud loola wareegin ama ciyaartooygan aanay la wareegin koox oo kooxday rabto inay la wareegto ciyaartooyga Enzo Fernandez. waxaa looga baahan yahay ciyaartooygan inay bixiso qiimaha heshiis jebinta taasoo gaaraysa 105 milyan oo euro. haddaba sidoo kale madaxweynaha kooxda Benfica oo ka hadlay arrinka iyo sidoo kale bandhigyada iyo talabyada laga soo gudbinayo ciyaartooyga Enzo Fernandez inay kooxda Benfica ku jirto xilli aad u fiican oo kooxda aanay ku jirin ama aanay la soo darsin dhaqaale xumo, arrinkaas oo ku kalifi lahaa ciyaartooygan inay iibiso. haddaba Enzo Fernandez hadda waxaa u tartamaya kooxaha Manchester City iyo kooxaha Manchester United iyo Liverpool, waxaana la sheegay in kooxda Newcastle United ay tahay kooxda saddexaad ee hadda ciyaartooygan aadka u doonaysa. dhinaca kale kooxda Bayern ayaa si rasmi ah u shaacisay inay heshiis kordhin u samaysay ciyaartooygeeda iyo sidoo kale weeraryahankeeda Thomas Muller. haddaba ciyaartooygan Thomas Muller oo marka hore uu dhammaanayay heshiiska uu kula jiro kooxda Bayern xagaaga sanada 2023 ayaa hadda waxay si rasmi ah u shaacisay kooxdu inay heshiis kordhin u samaysay ciyaartooygan. ciyaartooyga Thomas Muller oo hadda u ciyaara kooxda Bayern ayaa waxa uu saxeexay kooxda Bayern heshiis cusub oo ah ilaa sanada 2024. dhinaca kale haddii ay eegno ciyaartooyga Kylian Mbappe, sida ay sheegeen qaar ka mid ah warbaahinta waddanka Faransiisko, ciyaartooyga Kylian Mbappe waxaa jira waayihii ugu dambeeyey in la sheegayay inay suuragal tahay ciyaartooygan inuu ka tago kooxda PSG iyo sidoo kale ciyaartooygan inuu sii joogo kooxda PSG, oo labada go'aanba ay dhici karaan, go'aanka ah inuu ciyaartooygu baxo iyo sidoo kale go'aanka ah inuu sii joogo ciyaartooygu. haddaba waxaa la sheegay ciyaartooygan haddii ay rabaan mas'uuliyiinta kooxda PSG inuu ciyaartooyga Kylian Mbappe uu sii joogo kooxda PSG uu dhammaysto muddada uu kula jiray heshiiska, in looga baahan yahay kooxda PSG iyo mas'uuliyiinteedu inay ka soo baxaan saddexdan shay kuwaas oo ah kuwa dalbaday markuu ciyaartooygan heshiiska u saxeexay kooxda PSG. haddaba arrinka koowaad ayaa ah inay kooxdu iibiso ciyaartooyga Neymar, oo xagaagii hore isku dayday kooxda PSG inay iibiso ciyaartooyga Neymar balse ay awoodi weyday. haddaba ciyaartooyga Kylian Mbappe si uu sii joogo kooxda PSG waxaa la sheegay inuu u baahan yahay inay kooxdu iibiso ciyaartooyga Neymar. arrinka labaad ayaa ah inay u baahan tahay kooxda PSG inay soo iibsato ama ay la soo saxeexato ama ay la soo wareegto weeraryahanka xulka qaranka Ingiriiska iyo sidoo kale kooxda Tottenham iyo Harry Kane. halka uu arrinka saddexaad uu yahay in looga baahan yahay mas'uuliyiinta kooxda PSG inay la soo wareegto ama ay la soo saxeexato tababarihii hore ee kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane. haddaba ciyaartooyga Kylian Mbappe haddii aanay ka soo bixin mas'uuliyiinta iyo sidoo kale maamulka kooxda PSG saddexdaa sharad ama saddexdaa shay oo uu dalbaday, kuwaas oo ah kooxda inay iibiso ciyaartooyga Neymar, kan labaadna uu yahay in la soo wareegto ama in la soo saxeexato ciyaartooyga Harry Kane iyo in la soo saxeexato tababarihii hore ee kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane. haddii ay kooxdu ka soo bixi weyday shuruudaha, waxaa ciyaartooyga Kylian Mbappe suuragal ah inuu ka tago kooxda PSG ama uu ka baxo xagaaga sanada 2023 ama xagaaga ku xiga ee sanada 2024. halka ay sheegeen qaar ka mid ah warbaahinta waddanka Talyaaniga inay kooxda PSG isku dayi doonto inay la soo wareegto ciyaartooyga isku waddanka yihiin Ashraf Hakimi ee Sofiane Merabbet. haddaba ciyaartooyga Sofiane Merabbet ayaa waxa uu ka mid ahaa ciyaartooyda ugu fiicneyd koobka adduunka, sidoo kalena u soo bandhigay koobka adduunka tayada uu leeyahay ciyaartooygan. haddaba waxaa jira ciyaartooygan u ciyaara kooxda Fiorentina ee jiraan kooxa doonaya kuwaas oo ka kala ciyaara horyaalada ugu waaweyn qaaradda Yurub, waxaana ka mid ah kooxaha doonaya kooxaha ka ciyaara horyaalka Ingiriiska ee Premier League, waxaana ugu cadcad kooxda Tottenham iyo sidoo kale kooxda Liverpool. haddaba kooxda Tottenham tababaryaheeda Antonio Conte ayaa aad u doonayay ciyaartooygan, sidoo kalena ka helay qaab ciyaareedka Sofiane Merabbet. sidoo kale tababaraha kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa isaguna waxa uu ka mid ahaa tababarayaashii doonayay ciyaartooyga Sofiane Merabbet inuu la soo wareego ama uu ku soo daro kooxda Liverpool, waxaana suuragal ah in labada kooxoodba la soo wareegaan ciyaartooygan bisha January. haddaba waxaa la sheegay kooxda PSG inay doonayso la soo wareegida ciyaartooyga isku waddanka yihiin Ashraf Hakimi ee Sofiane Merabbet. kooxda Fiorentina oo ciyaartooygan heshiis kula jiro ilaa sanada 2024 ayaa waxay doonaysaa kooxdu inay ku iibiso ciyaartooygan qiimo lagu qiyaasay 30 milyan oo euro. haddaba kooxda PSG ayaa doonaysaa in ciyaartooyga Ashraf Hakimi gelisay heshiiskaasi uga qayb qaato imaashaha oo imaantika oo iman lahaa ciyaartooyga Sofiane Merabbet kooxda PSG. sidoo kalena kooxda PSG ay diyaar ula tahay ciyaartooyga Sofiane Merabbet dalabka ay dalbato ama qiimaha ay dalbato kooxda Fiorentina, kaasoo ay sheegeen inuu yahay 30 milyan oo euro inay kooxda ku fasaxayso ciyaartooyga. dhinaca kale ciyaartooyga Rafael Leao oo ciyaara kooxda AC Milan oo ka mid ahaa ciyaartooyda ay aadka u doonayeen kooxaha ugu waaweyn horyaalka Ingiriiska ee Premier League ayaa ciyaartooygan waxa uu sheegay inuu ka helo qaab ciyaareedka kooxda Arsenal. Rafael Leao oo jiray 23 sano ayaa waxa uu ka mid yahay ciyaartooyda daayarka ee hadda aadka looga doonaya qaaradda Yurub. sidoo kale ciyaartooygan xilli ciyaareedkan kooxda AC Milan ilaa hadda waxa uu dhaliyay 7 gool, sidoo kale ciyaartooygan waxa uu sameeyay 7 caawimaad. haddaba ciyaartooygan ayaa waxa uu soo jiitay indhaha kooxaha ugu waaweyn qaaradda Yurub
gaar ahaan kooxaha ka ciyaara horyaalka Ingiriiska ee Premier League kuwaasoo ay ku jirto kooxda Chelsea, Manchester United iyo sidoo kale kooxda Arsenal. Haddaba ciyaartoygan sida uu sheegay, kooxda Arsenal ayaa kooxda aadka ugu helay kubaddooda iyo sidoo kale qaab ciyaaroodkooda. Waxaana sheegay ciyaartoygan in kooxda Arsenal uu ciyaarto qaab fiican. Haddaba ciyaartoygan Rafael Leao heshiiska uu kula jiro kooxda AC Milan waxaa ka dhiman muddo lagu qiyaasay 18 bilood. sidoo kale ilaa hadda ma jiro wax safgarad ah oo u dhexeeya kooxda AC Milan iyo ciyaartoygan Rafael Leao. waxaana la filayaa kooxda Chelsea inay ciyaartoygan ay toddobaadyada soo socda kadib marka uu furmo suuqa bisha January ay ciyaartoyga ka gudbin doonto talab lagu qiyaasay qiimihiisa 86 bilyan oo euro. tababaraha kooxda Chelsea Graham Potter ayaa aad u doonayay ciyaartoygan, sidoo kalena doonaya inuu la soo wareego bisha January. iyaduna waxaa ka mid ah kooxaha doonaysa ciyaartoygan Rafael Leao kooxda Manchester United oo isku day doonta inay la soo wareegto bisha January. ugu dambeyntii waxaan eegi doonaa kulamada caawa la ciyaari doono horyaalka Ingiriiska ee Premier League iyadoo lagu jiro maalmaha loo yaqaano Boxing Day-ga. haddaba waxaa jira 2 kulan oo waxaa ciyaari doona kooxda Chelsea ayaa la ciyaari doonta kooxda Bournemouth oo kooxda Chelsea horyaalka Ingiriiska ee Premier League hadda waxay ku jirtaa kooxdu kaalinta 9aad. haddaba kooxda Chelsea ayaa kooxda Bournemouth ku martigelin doonta garoonkeeda Stamford Bridge. sidoo kale kooxda Manchester United ayaa iyaguna ciyaari doona oo waxay garoonkooda Old Trafford ku martigelin doonaan kooxda Nottingham Forest kadib markii ay kooxda Manchester United ka timi guul ay ka soo gaadhay kooxda Burnley gaar ahaan kulankii ay ciyaarayeen kaasoo ahaa koobka EFL Cup-ka ama Carabao Cup-ka. waxayna caawa ciyaari doontaa Manchester United kulankooda ugu horeeyay horyaalka Ingiriiska ee Premier League kadib markii ay kooxda ciyaartay kulanka ugu dambeeyay muddo lagu qiyaasay 43 maalmood ama ka hor koobka adduunka. haddii aad ka heshay muuqaalka fadlan like, subscribe, channelka si aad ula socotid muuqaalada dambe.